xildhibaan Axmed Nuur Yuusuf Guruuj oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta mar uu la hadlayay warfidineedyada ka howlgala caasimadda Hargeysa baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland isla markaasina baaqaasi mid la mid ah u diray taliyaha ciidanka Soomaaliland taani iyo gudida abaaraha waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan wadanku ku sugan yahay abaaraha iyo sixir bararka arrinka abaarta iyo sixir bararka markii aynu ka hadalnay aynu halkan aynu maanta fadhiyaynu kaga hadalnay waxay ahayd bishii 12aad 3 bilood ka hor baynu ka sii dignay sida xaaladdu ku socoto in laga diyaar garoobo ilaahay amarkii wixii aynu ka deganay imanka way muuqdaan sixir bararka maanta war ma leh wax waliba cirkaasay isku shareereen wax alla wax dadku maanta goyn karayaan ma jiro abaarihina halkii ugu kulleed bay marayaan haddii aan intaa ilaahay naga jabinina tii xoolama hadalaya dadku khatar baa ku leeyahay waa xaaladda abaaruhu inay dad badan kala fataaba suuragal lagu koraysa sidaa markay tahay maanta waxaan la hadlayaa 3 meelood koow madaxweynaha 2 gudida abaaraha 3 taliyaha militariga koow madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waxa la yidhi nin baa isha leeb kaga dhacay baridana leeb baa kaga dhacay dabeetana nin buu yimi faraadino dadka dadweeyay dhaqameedka yaqaan wuxuu labada yeeman ka gooyaa wuxuu walba hortaan fadhiistay leebka barida iga tar madaxweyne sixir bararka la haynoo dambeeyay batroolkii baa maanta ugu daran cidii biyo la gaari lahaa wax loogu qaado lama hayo batroolka cirku maraya cidii raashin loo qaadi lahaa loo qaadi kari maayo madaxweyne kootadii markaad wadanka timi jirtay ee keebiladu way furan yihiin baa tidhiyo ummaduna way kugu taageertayoo keebiladina way furmeen shirkadiina waa kuwa ku heshiiyay maanta midoobay ururadina way furan yihiin baa tidhiyo dad badan baa kugu taageeray inkastoo aan waan markaa jeclayn haddana dad badan baa kugu dhaweeyay madaxweyne maanta waxa laga doonayaa shidaalku furan yahay dadku maanta waxay dhagihiisu doonayaan shidaalku furan yahay cidii booyad wadanka shidaal ku keenaysa iyo cidii dooni ku keenaysa iyo cidii markab ku keenaysa nooc doono shidaalkaas ha ahaado ama dhooba ha lahaado ama daambur ha lahaado shidaal uma maanta loo baahan markaynu ladnaanaabaynu tayadiisa eegiyay madaxweyne maanta dadka bakti buu ku jiraa shidaalka fur oo cidii keenaysa baa u fasax oo waliba cashuurtana ka daa haddii aan shidaalkaasi jabin wax alla waxaynu qaban karaynaa ma jirto shalay nin baa i warramay wuxuu yidhi 4 iyo 10 cisho ayaa inaan dhalay booyadu taagnaa inuu reerkii u geeyo markuu waayey ayuu Hargeysa yimi aab booyadiga raaci buu Hargeysa biyo qaata Hargeysaan ka raaci $520 ayaa loorka biyo lagu geenayaa buu waan 40 fuust dee madaxweyne $500 fuust booyad biyo ah dadku bixin kari maayo haddii shidaalku inaga jabo waxa laga yaabi lahaa in wuxuu nafisi lahaa madaxweyne maanta dadka waxa karkarinaya oo naqaska ku haya shidaalkuna amarkaagu buu ku xulin inaad tiro cidii shidaal keenaysa maanta hakanto madaxweyne maanta waxa laga yaabaa go'aanka aad qaadato inaad tanadaba ku gashay maanta shidaalka fasaxo markaad soo degto kulay saxaafadda waad la hadlay sidii aad u tidhi uradu way furan shidaalku furan yihiin intaasaan ku oranayaa adiga maanta ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu waanada ku waafaqo waayo anagu waanada annaguna ilaahay baan waajar ka doonaynaa adigana ajar baan kula doonaynaa wax kale uga ma jeedin ilaahay baa yidhi fadakir inna dikra tanfa'ul mu'minuun inta badan anagu waanu baan ku celcelinaa kuma tacaayidayno kuma dhaliilo tan baan ku soo jeedinaa taladaan soo jeedinayna hadaad qaadato ajar baad ka helaynaa ajar baan ku helaynaa qoladan gudida abaaraha waxaan leeyahay nima yahow inta wax uruurinaysaan ee wax isu geegenaysaan baad dadku dhimanaya waayo waxa la yidhi dhicisku inta birta loo soo sidaa buu dhintaa war waxba isla sugunay waxa haysaan la carro dadka wax la gaadha oo sida dadku u kala daran yahay ula gaadha iyagana inta san oranaya taliyaha militariga waxa leeyahay sareeyo gaas Nuux Ismaaciil taani Nuux Ismaaciilow
berigii aad ka shaqayn jirtay Kismaayo 4 gobolkii aad joogi jirtay ee Jubbada Hoose wuxuu ahaa kii dadkii abaaraha ku cayloobay la geeyay ciddii dadkii abaaraha ku cayloobay gobollada Togdheer iyo Sool iyo Sanaag laga qaaday dad gureynaysi dad jiraysay meel walba ka warhaysay ciidankii xoogga dalka beriga jiray aduguna sarkaalka ka mid ahayd buuha maanta adiga iyo ciidankaaga sharafta loo naqoon karaamo iyo tixgelin u hayno iyo xukuumadda hadii aanu nahay dadweynaha beriga iyo koonfurta Hargeysa gurmad baanu ka eegin mid biya iyo mid baada iyo mid xoogaba laakiin xalay markaanu maqalay dabrid baa la ridayaa waanu yaabna waanu argagaxna sababta oo ah xilliga barwaaqada wax la dabridaan la dabaal dagaay maanta iyadoo dadku oon u qaayo dabrid kamaanaan fileen adiga gurmad baanu ka fileen markaa waxaanu isweydiinay meel riig laga qodayo maqalay meel biyo la geenayo maqalay meel ceel laga qodayo maqalay meel dadka qoysaska lacag cadaanaba loo qaybinayo maqalay talooyinku ma dabridka qaybo heshay baanu isniyo dawladdu idinku dabridkeedin karata bal dabridka ba waanu iska yimaadsan doonaa hadii dawladdu anaga dabridkaas noo garatay anagoo in badan cabanayni waxaan leenahay bal dabridka wax loo raaciyo bal aduguna dhinacaaga ka gurmo dabridku markuu inaga dhamaaday ilaahay khayr ka dhigay biyo iyo gurmad iyo wuxul ilaa ciidamadu waa gurmadaale noogu dar adagana intaasaan ku oranaya wax eedaya wax dhaliilo kuma hayno laakiin gacan military oo caawimadu maanta filay maadaama abaar lagu jiro laakiin markii la yiri madaafiic weyn baa la ridayaa ka guura oo ka bayda waxaan talo maanta maalintii madaafiicda ma ahayn sanadka ma booydii iyo madaafiicda baa iskaga qaldamay oo booydii soo waday booyduhu ma madaafiicda soo hormarta sanad markaa madaafiicda haddaad noogu bedelayso booydana waad mahadsantay haddii madaafiicdu markay dhammaataad biyana soo gaadhaysana waa kaa sugaynaa biyaan sugaynaa inta ka soo dhan kadib waxaan baa ku dirayaa nimanka tijaarta leedahay u dirmaayo tijaarta waxaan leeyahay qof waliba waatan hore anigu idin la hadlay dadkan biyo magaalo qof waliba saacada loo qoran buu dhiman doonaa mid silcaya iyo mid dargaya naftu waa saacad umadii waxba ka jabin weyday miduun ogaada waa la idinka xisaabinaya ilaahay wuxuu yiraahdaa laa yadullu ulaa'ika annahum mab'uusun liyawmin 'adiim yawma yaquumu an-naasu lirabbil 'aalamiin ilaahay hortiisa marka la idin soo taago dadka waa la idinka xisaabin doonaa waxa ka yeelaysa ka yeela waxaan maanta u dirayaa dadka kale ee gurba jooga iyo shaqaalaha iyo dadka xoogsatada iyo cidii waxaysa waxaan leeyahay walaalayaal kii koomba biyo dir karayo dir kii jirkaan dir karayo dir miyiga qura lagu beelaa magaaladana waa lagu beelay taangiga yaraa biyaha steeto ku maraya dadku ma wada haysto ninkii maanta qaadka iska daynayo ee qoys ku xigay steeto ka ku caawinay waxba u taraysa maanta waxaan leeyahay dadku ay isu gurmado dadka dabadana waxaan leeyahay in badan baa soo gurmateen maantana soo gurmada la idinka maarmi maaye inta leena aqoonsanayo ilaahay wuxuu siinayo in wax weyn siinayo wadanka iyo dadkuba waa idin baahayna maanta waxba baa la hadhina ciyaalada cadaanka iyo waxun baa idin masruufay waxa haysa ma maanta soo dhaafiya intaasaan kaga tagayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu abaaraha iyo oonka iyo sixir bararka si degdeg ah inooga kor qaado tijaartana waxaan leeyahay haddii ilaahay idin ku anfacayo cid walba idin la hadashay haddaad waxba qaadan weydaanna waxa ka yeeshaan baa leedii ilaahay idin la xisaabtamaya